halkan waxaanu nahay suuqa gobonimo gudoomiyihiisii danyarta aniga ah waxa weeyaan 4 urur oo danyara oo islaanta milixda iibisa ku jirto waxa aanu garanay inaanu dalkayaga iyo ciidayada isbarbar taagno kolba halkii jilicsan wixii aanu tari karayno bisha Ramadaan waxaanu keenay 20 neef iyo waxaanu keenay macaankii oo gaara hadduu cambiyo liin yahay wixii sharaab looga sameeyay iyo wixii loo karinayay dheriga lagu daray abgii dheriga milixdeena ha noqotay waanu keenay dadkayaga aanu u nahay madaxda ayaanu u nahay ururiyaha jecel ayaanu ka soo ururinay jeebkayagana kamaanu bixin wixii aanu ku dari kareynana waanu ku darnay waxaan ugu horeyn u mahad celinayaa ururada dalladda quudiya adeeg gudoomiyahooda iyo dhammaan xubnaha halkan ku sugan tabarucaadka iyo shilimaadka yaryar inta isku geeyeen gartay inay muxuu ahaa dadkooga xanuunsanaya ee dhimirka ka xanuunsanaya ay ku deeqaan oo iyagu intay isku geeyaan ay u geeyaan ilaahay wuxuu leeyahay alladina yunfiquuna amwaalahum bil-layli wan-nahaari sirran wa calaaniya falahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun ilaahay wuxuu leeyahay kuwa xoolahooga bixinaya habeen iyo maalin kor iyo hoos ilaahay wuxuu ballan qaaday ajar weyn falahum ajruhum cinda rabbihim ilaahay agtiisu ajarkiisu yaallaa marka walaalayaal waxaad bixiseen ilaahay agtiisa ayaad ka helaysaan sida aad u bixiseen aad iskaga soo ururseen sababtoo dadkaad ka soo ururinayseen halkan ma wada joogaan iminka in badan baa sirri ku soo bixisay innagiina waa innagaa maanta aad muxuu ahaa bulshada aynu tusayno aynu leenahay bal ku dayda hooyooyinka habeen iyo maalinba arrimaha bulshada ka shaqeeya shalay toole oo ugu dambeysay waa kuwii dhagaxa gurayay hooyooyinkaasi xaqiiqatan waxaanu qiraynaa inay yihiin madaalayaal dad ku dayasho mudan dad abaal in loo celiyo mudan inay yihiin yaanu ognahay barnaamijkan maanta waa fariin toosa waa fariin dadban waa fariin aynu u dirayno dadku ilaahay wax siiyey iyo qof kastoo ilaahay in yarba ha ahaatee inuu ilaahay wuxuu ina amray inaynu wax ka bixinno xoolaheenna oo inama sadaqaad buu ilaahay leeyahay sadaqa waa kugu waajib dushaada maalin walba waa waajib markaa si aad waajibaadkaa iskaga ridid meelihii ku habboonaana ee ilaahay uu tilmaamayna waa halkan aynu ku sugannahay waxaynu joognaa cisbitaalkii weynaa ee magaalada Hargeysa oo aynu maanta ku wareejinayno deeqda khudradda iyo xoolaha iskugu jirta oo ay soo wareejiyeen ururada isku tagay quudiya adeeg ee suuqa gobonimo ka tirsan degmada 26 Juun kale halkan waxay noo yaalloon 2 qodob oo mid yahay mahad celin ka labaadna uu yahay in aynu message ama fariin u dirno ganacsatada kale ee ku dhaqan Hargeysa iyo waliba degmo 8 degmo iyo gaar ahaan waliba degmada aan anagu mas'uulka ka nahay 26 Juun si gaar ah horta waxaan ugu mahad celinaa ururada isku tagay quudiya adeeg ee wixii yaraayay hay'adda wax weeyaan ay ku ganacsanayeen ama suuqa kula fadhiyeen gartayna inta ka soo jaraan oo dadkooga xanuunsanaya ay ugu deeqaan bisha barakeysan ee Ramadaan iyo waliba xilliyada kale oo ay si fiican uga qayb qaataan arrimaha bulshada aad iyo aad baan ugu mahad celinaa message-ka labaad ee dirayna wax weeyaan ganacsatada kala duwan ama cidda jeebka wax ku haysa waxaan faraynaa oo waliba aad iyo aad u faraynaa inay ka qayb qaataan arrimaha noocan oo kala oo dadkooga xanuunsanaya cisbitaalada jiifa iyo waliba kuwa halka dhimirka ka xanuunsanaya ay hoos u eegaan runtii aniga dareen gaar ah sameynaysaa kulli waxaan yara saxayaa hooyooyinka aanu dan yar uma arkay waxaan leeyahay waa dan weyn ganacsato yarna waa tihiin waxa aad keenteen waxa weeyaan in ganacsi aad ganacsateen baad wax iska sii goyseen waliba waana wax runtii lagu farxo ilaahayna waxaan ka baryaa in miisaanka xasanaadkeedu ku daro cisbitaalka guud ee Hargeysa waa cisbitaalka ugu ballaaran wadanka waxaanu adeeg laxaadle u hayaa bulshada degan Hargeysa iyo nawaaxigeedaba bulshada waxa koow ka ah dadka shaqooyinka hoose ka shaqeeya dadka muxuu ahaa ganacsatada yaryar ah oo iyagu meesha kaliya u adeegta ee wixii allayaale wixii ay caafimaad uga baahan yihiin siisa ay ka helaan waa halkan weey qaybtan maanta aynu joogno ee aynu tabarucaadka aad soo ururiseen siinayna waa qaybta dhimirka ee cisbitaalka guud ee Hargeysa dhammaanba dadka lagu adeega waxa loogu adeegaa si lacag la'aan ah
cuntada iyo raashinka la siiyo waa kuwa aad idinka iyo dawladda iyo dadka idila midka aad keentaan ayuunbaa ummaddaa la siiyaa kuwaas ayuunbaa markaa iyagana wax u tara intaasoo qof aa ku bogsada oo shaqooyinkoodii iyo noloshoodii dib ugu noqda taasina waxa weeyaan waa wax miisaankiina soconaya waa waqfi soconaya maanta inta aad keenteen iyo inta kale ee aad keeni doontaan iyo inta cidda kale keeni doontaba runtii waxaa toos loo siin doonaa ay u gaari doonaan dadka bukaanka ah ee xarunta jiifa ayaa cunto looga dhigayaa raashin looga dhigayaa intaa bisha ramadaan iyo intii kale ay ka gaadhaba aad iyo aadna waan idinku mahadinaynaa kolley dowladda hoose oo wada shaqayn joogta aan leenahayna waxaan leenahay idinkana waa mahadsantihiin intaa iyo in ka badanna inaan iskaga sii dhowaano ayaan rajaynaynaa